Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Kulanti wacan oo wanaagsan asxaabta qaaliga ah. Kusoo dhawaada YouTube-kayga Shukri labo Octoos mar kale iyo video cusub ayaan ku kulmaynaa. Channelka haddaa ku cusub tahay fiidiyahan ayaa kii kuugu horreeyay. Waxaa kaa codsanaa channelkiina subscribe ay saartid weliba si naxariis leh fiidiyaha ay like garaysid share garayso asxaabtaada aad la wadaagto waana ku mahadsan tahay daawashada fiidiyoyaasheeda. Maanta waxaa idin wadaa fiideo cusub laakiin intaana fiidiyeena u guda gelin waxaa idinka codsanayaa inay igula saldhisaan rasuulka sallallahu calayhi wasallam. Allahumma salli wa sallim calaa nabiyina Muhammad sallallahu calayhi wasallam. Haddana qisadeena hanoo bilaabato. Qisadeena maanta waxay ka hadlaysaa dulmiga iyo sida uu u xun yahay hadaa qof bini'aadan aad dulmisid oo aan iska kaa celin karin ama waxba iska kaa dhigi karin oo xoog sheegatid oo aad dulmisid in dulmigaas oo adiga dulmigaas saameyntiisa adiga ay ku yeelanayso. Haddaba sheekadeena maanta waxay ka dhacday wadanka wadamada Carabta. Waxaa jirtay shirkad weyn oo ka mid ah shirkadaha waaweyn ee ku yaala wadanka wadamada Carabta. Shirkadda baa marka waxaa maamulaha guud ee shirkadda waxaa ahaa nin la dhaho Mubaarak wuxuu ahaa marka nin tasarufaadkiisa kibir badan dadka maxaa la dhahaa shaqaalaha shirkadda ixtiraamin oo aan soo dhaweynin oo aan aad u tasarufaad xumaa marka wuxuu isdhahaa hadaa saas ula dhaqantid oo dhaqamadan ku adkaysid micnaha dad wax walba ku adkeynaa hadaa ku adkaysid nacam markaasaa shaqsiyadaadii haybadaada kor ay noqonaysaa dadkana micnaha qof kasta dadka aad si wanaagsan u dhaqmaysid jilicsan tahay micnaha dadku way ku yareysanayaan oo isdhahay soo hadaa isku adkaysid bay dadku ku cizeynayaan camal saas si kale hadaa u dhigo saas uu arkay marka isaga ma ahayn shirkadda marka waxaa jiray nin kale oo Sheekh Maxamuud la dhaho baa wuxuu ahaa milkiilaha shirkadda isaguna wuxuu ahaa maamulaha guud ee shirkaddu ahaa waxaa jira nin la dhaho Saalim oo asagana ka shaqeyn jiray qaybta cuntada oo shaqaalaha wuxuu u geyn jiray shaaha qaxwada waxyaabaha cunnada ku saabsan oo ay u baahdaan ayuu u geyn jiray marka wuxuu ahaa nin ah oo muddo 20 sano ka badan ka shaqeynaya shirkadda Mubaarak marka oo ah mudiirka ama maamulaha guud ee shirkadda ah wuxuu ninkan dhowr jeer wuxuu ka codsan jiray intuu imaado ninka Saalim la dhaho ee dhinaca jikada ka shaqeeya baa wuxuu imaan jiray ninka mudiirka ah oo maamulaha guud wuxuu dhihi jiray anisa ujeedada hadda waa weynaaday waqti dheer shirkadda ka shaqeynaya waxa ka codsanaya in shaqaale iyo qortid micnaha qof i caawiyo in ay keentid maxaa yeelay anu ma soo kori karo hadda qofkan weynaa noqdo haba intaa soo koro haddana dego haddana soo koro shirkadduna way weyn tahay ilaa halkaas ma tagi karo marka aniga wixii waa sameynaa qof qaada oo haba dalabka imaado shaqaalaha u geeyo iyo qor uu dhihi jiray markaas isagana wuxuu ku dhihi jiray haddii aad arkaysid inaad shaqada qabsan karin waxaa jira dad badan oo u baahan shaqadan marka haddaad shaqada aadan gudan karinin soo gudbi istiqaaladaada ka tag noo shaqada saasuu dhihi jiray marka mar walba qof weyn oo inta sano ka shaqeynayo wuxuu dhahay aniga xagee aadaya shaqadana waqtigayga oo dhan aanta ka shaqeynayo aniga hadda marka qof ina siiya dabcan nasiino kala ma aan cuntadii wixii sameeyay qof ii geeyay bis ii qor mar walba waa uu ka diidi jiray wuxuu dhihi jiray shaqada istiqaaladaada soo gudbiso kana tag dad kale to u baahan imaanaya hadaadan hawadi karin hadii kale to wad saasuu markasta uu ku celcelin jiray muddo kadib haba wuu ka codsadaa wuu ka diidaa maalinkii dambe maxaa la dhahaa Mubaarak wuxuu go'aansaday ninkan wuu iska dhex arkayba mararka qaar qof iska dhex arkay mugto iska dhex arkaba wuxuu go'aansaday in uu siiyo warqadda fasaxa shaqada uu kaga fasaxayo inuu siiyo marka warqadda fasaxa uu qoray sidoo kale wuxuu wacay qolihii wuxuu xisaabaadkiisa in wuxuu xuquuqda uu lahaa oo dhan la siiyo warqad saas uu soo gudbiyay dabcan Saalim aad uu uga xumaaday waqtigiisa oo dhan shirkaddan uu ka soo shaqeeyay mushaarkaas yarka oo xataa weligii loo kordhin uu iska qaadanayay intaasuu nolol ka dhiganayay meel kale haddii koo shaqo cid xilligan kadib ku shaqaalaysiinaysa ma lahan because qof da'a waayo wuu weynaaday meeshii oo muddada dheer ka shaqeynaya maan meel kale hadda ma qaadanayso marka wuu iska murugooday dadkii oo shaqaalaha oo shirkadda ka shaqeynayeen baa waxay u tageen Mubaarak waxay dhaheen Mubaarak ilaahay ka baq maxaa la odaga inta sano meesha ka shaqeynaya sanadaadkaas badan oo ku shaqeynaya xataa ku ixtiraam marka meesha ka shaqeysto ee qof shaqaala u keen waa uu ku gacan seeray because waa nin tasarruf badan oo kibir badan waa uu diiday bis maalintii ugu dambeysay Saalim oo shaqada ugu shaqeysay odaga oo adeer Saalim baa wuxuu u imaaday nin la dhaho Ra'fan oo asagana xafiiska ninkan oo Mubaarak ka shaqeeyo la shaqeeyo dadka oo markaa dadka u soo daadaayo
marka wuxuu u imaaday wuxuu dhahay waxaa rabaa hal mar inaa u tago maxaa la dhahaa Mubaarak inaa hal mar u tagaa rabaa u dhahay Ra'fan iyo kalo Ra'fan wuxuu ku dhahay dhib male u gal wuu u galay wuxuu dhahay haye weli ma bixin miya maxaa rabtaa waxaaga dhan soo laguma siinin maxaa meesha ka qabanaysaa wuxuu dhahay waa baxooyaa waana last waxaa rabay inaa kula hadlo hal mar waxaa kuu sheegayaa uu dhahay adduunyada way wareegsataa uu dhahay maalina waa maalintaada maalina waa qofka kale maalintiisa midda kale waxa ogaataa uu dhahay dulumka uu yahay wax aan fiicnayn hadhowtadiina adiga kugu soo bixi doono adiga wuxuu dhahay intaasa kuu sheegi rabay waana iska tagaa maanta aan iigu kaa dambayso dhah haye iska baxoo dhahay wax kale ma kuu dhiman maya iska bax albaab kale hore iigu sii xir bliis hayuu iska soo dhahay odaga Saalim wuu iska soo baxay ilaahay amarkiis maxaa dhacay maalintaas mataqaanaa ninkii Saalim Mubaarak ahaa maxaa ku dhacay ma qiyaasi kartid Saalim isla maalintaas gudaheeda markii odaga uu tagay cabaar kadib waxaa la gaaray xilligii fasaxa shaqada gurigiisii ayuu rabay inuu aado baabuurkiisu soo watay jidka markii uu soo maray wuxuu galay shil gaari oo aan caadi ahayn shil aad u weyn kaasoo noloshiisa dhan galaaftay lugu ka jabay dhabarku ka jabay nacam dhaawac aan caadi ahayn asoo gaaray markuu dhaawacii soo gaaray waa istaala la geeyey waxaa la isku dayay in la badbaadiyo alxamdulilah waa la badbaadiyey kabacdi waxaa dhacday shaqaalihii iyo ninkii maxaa la shirkadda iska lahaa ay kulli way maqleen waa istaalkii kusoo booqdeen salaamaada la wax walba kusoo gaaray bas waxaa dhacday marka muddo markii ninkan baaritaankiisa wixii soo dhamaaday la ogaaday inuu jabay yahay dhabarka uusan ku dhaqaaqi karin ninka shirkadda iska lahaa wuxuu dhahay wuu fikiray wuxuuna dareemay in uusan ninkan waqti dheer ku qaadanaysaa inuu soo daawoobo oo cilaaj soo qaato waqti dheer ay qaadanaysaa shirkadiina waxay u baahan tahay qof sii kala wada oo nacam lama sugi karo inaan la sugi karin oo dareemay marka uu baxay wuxuu u tagay Ra'fan oo ahaa ninkii ku xigay ninkaas oo qaybta xafiiskiisa asna ka shaqeynaya wuxuu dhahay waxaa rabaa in shaqada intuu kasoo baxayo Ra'fan ku magacaabo madiir caamka shirkadda in aad ku magacaabo rabaa si shaqada ay u sii socoto because Ra'fan hadda xaaladiisa way adag tahay Mubaarak xaaladiisa hadda way adag tahay waqtigeena ku qaadanay inuu soo bogsado sidaas daraadeed ka waran hadda aad ku magacaabo madiirka shirkadda ku meel gaar ah ninka wuuba filan waayaba wuxuu dhahay ma aniga la ii magacaabaya aad u farxay wuxuu dhahay diyaar waayo dhahay aniga waa sii wadaa ilaa intuu kasoo bogskoonayo maxaa la dhahaa Mubaarak okay waayo dhahay asaga loo magacaabay asaga markii loo magacaabay isla markii loo magacaabayna asaga wuxuu soo celiyay odaygii oo Saalim uu soo celiyay shaqadiisii ku soo celiyay because ninkan oo Ra'fan wuxuu ahaa nin aad u wanaagsan shaqaalaha iyo dadka dhan isku wada fiicnaayeen oo ahaa oo dhaqan ahaan aad u wanaagsan dad oo wuxuu ahaa qalbiga nadiifka leh odaga Saalim uu soo celiyay laba shaqaalana wuu u qoray oo dadka wuxuu geeyaan wuxuu labadan shaqaalana ku shaqeyso oo cuntadii waxa ku geeyaan adigana meeshaada sida uga shaqeyso dhahan wax yar kadib ninkii intuu istaalka ku jiray Sheekh Maxamuud oo iska lahaa shirkadda wuxuu arkay shirkadda in ay zaaid u kortay zaaid ay noqotay shirkadaha ugu waaweyn ee markaas meesha ka shaqeynayo markii loo dhiibay ninkan Ra'fan inuu si weyn u kala waday ayba ka fiican tahay markii uu Mubaarak haayay saas soo arkay kabacdi wuxuu go'aansaday inuu hadda si ku meel gaaray ahayd inuu uga dhigo asaga uu noqdo maxaa la dhahaa Ra'fan inuu noqdo madiirka guud oo ninka kale laga qaado asaga loo dhiibo oo isaga uu abadi ahaado macnaha asaga uu noqdo maadaama shirkadda wax badan uu ka bedelay sidii looga bedelay kadibna ninkii oo Mubaarak ahaa oo tasarrufka iyo kibirka badnaa baasoo istaalka ku jiro dadka kale oo shaqaalihii kale waxay u sheegeen in laga qaaday xilkii oo loo dhiibay Ra'fan oo asaga madiirka uu noqday oo maamulaha guud ee shirkadda uu noqday si abadi ah markaas xogaa uu yara xumaaday wuxuuna soo wacay Sheekh Maxamuud wuxuu ku dhahay Sheekh Maxamuud maxaa waay warka aan maqlooyo oo ii soo sheegayaan shaqaalaha shirkadda wuxuu dhahay wallahi saas waayuu dhahay Mubaarak Ra'fan asaa u magacaabo dhahay madiirka guud ee shirkadda waa nin aad u wanaagsan wuuna astaahilaa awlan waxaan bala yaabanaa sababta marka hore aan arki waayay because wax badan isbedel weyn buu gadaashaa shirkadda ka sameeyay markaasuu dhahay Mubaarak anigana maxaa ii xal ah camal marka wuxuu dhahay adiga hadda wax kale ha ka fikirin kaliya saa caafimaadkaaga asara ugu qaadi lahayd oo soo biskoon lahayd le ka fikir marka soo biskootidna
shaqo waa helaysaa, boos waa lagu siinaa qasab. Booska la siinaa maxay tahay? Ninkan waa mudiirkii dhammaay uu ahaa oo shirkaddan dhan maxaa la ugu sarreeyay. Levelada ka hooseeyana ma uu rabo inuu noqdo because wax ka sarreeya maba jiraanba. Ninkaas ahaa ninka ugu sarreeyay. So taleefanku iska damiyay isagoo aad qalbiga uga jaban, xasiin u ah oo aad macnaha u murugaysan. Sida uu u murugaysnaa maalinta uu shilka galayay Cammu Saalim ama Adeer Saalim siduu u murugaysnaa buu asna u murugooday ka waran. Wax yar shalay wuu fiicnaa isaga isla markii wax yar ka bacdi mashaakilkaana ku dhacay, shaqadii waa u waayay, caafimaadkiisii xitaa wuu waayay. Cammu Saalimna wax yar murugadiisa kadib shaqadiisii u soo noqday. Marka wax yar kadibna adeerka oo Saalim wuxuu dhahay waxaa rabaa inaan soo booqdo Mubaaraga cisbitaalka u tago Ra'fan ku dhahay. Ra'fan wuxuu dhahay oo ma waxa ogeyd intuu kugu sameeyay baa weli waxaa rabtaa inaad soo booqatid oo saamaxdayba. Wallaahi waxaa tahay uu dhahay qof aad u wanaagsan, qofka adi camalana muddadiiba hal mar la arkaa uu dhahay oo dadka dhan saas ma wada ahan uu dhahay qalbigooda. Marka wuxuu dhahay Cammu Saalix aniga dadka waxa kula tacaamulaa ama aan kula dhaqmaa uu dhahay aniga dariiqadeeda ama asluubteyda. Qof kale dhaqankiisa aniga wuxuu dhahay dadka kulama tacaamulo uu dhahay. Wixii kuu qorana waa helaysaa ayuu dhahay. Wixii Ilaahay xaggiis kaaga qoran marna kuma seegayaan waa helaysaa. Halkaasina kusoo gabagabooday qisadii qofka dhibka qabo oo hadda dhibaatoobay kaliya waa Mubaarak oo asaga kibirkii iyo tasarrufkii uusan meel wanaagsan geenin. Adduunyadu marka way midabyo badan tahay. Maalinna waa maalintaada, maalinna waa maalin aan adiga kugu wanaagsaneyn ama adiga lid kugu ah waaye. Mar walba marka wanaagu waxba kuuma dhibaayo. Haddaa qofkan wanaajisid waxba kuuma dhibaayo. Haddaa xumaysid adiga kugu soo noqona xumaanta aad samaynaysid. Laakiin qofkii aad xumaysay wuu ka noolaanaya wuuna ka tagayaa. Intaas kusoo gabagabeynayna qisadeenan maanta. Inta fiidiyaan lamida ku kulmaynan waxaa idinku dhaafaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.